Hay'adda samafalka iyo taakuleynta ee Anfac ayaa agabka waxbarashada gaadhsiisay 70 arday oo danyar ah. Waxaa gudaha dugsiga hoose dhexe ee Axmed Guri ka qabsoontay munaasabad deeq agabka waxbarashada loogu qaybinayay 70 arday oo danyar ah. Hay'addu anagu waa markii saddexaad mise waa markii labaad ay wax nasiinayso. Marka hadda ku raashin bay nasiisay, haddana dharkay carruurta iskuulka ay noogu yeedhay nasiis. Wasida aad baan ugu faraxsanay iyagana Allah ka jisaysayaan leenahay. Khayr Allah ha siiyo. qalabka carruurta iskuulka ku dhiganayeen buugaagtii le dresskoodii le maxay ahaydey qalmaantii le boorsadoodii le waxay nagu caawisay dresskii sida suudhan ah buugaantii qalinkii carruurtu way ku farxeen annaga waalidkuna aad baan u farxnay marka hay'adda Anfac waxaan leeyahay jiro ha joogto hay'adda Anfac wayna caawisaa siday tahay raashinka wayna siisaa bishii Ramadaan raashinkii bayna siisay dharkii iidayna siisay maantana waxayna siisay qalabkii iskuulka lagu baranayo dhan qalinkii buugaagtii oo hal darsin iyo bara dresskii oo dhameystiran way mahadsan yihiin Ilaahay baana raalli ka noqday anaguna raalli baanu ka nahay hay'adda Allahna ha guuleeyo. Munaasabadan ardayda danyarta ah loogu qaybinayay ilaha waxbarasho ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Sheekh Yuusuf iyo maareeyaha hay'adda samafalka iyo taakuleynta Anfac. Maanta waxaan dhex joognaa iskuulka Axmed Guri oo runtii ka mid ah iskuulada Jijiga dugsiga hoose dhexe aan dhihi karo waa iskuul hormuud oo fiican oo dad badan wax ku bartaan. Ujeedadan meesha u nimidna waxa weeye hay'adda Anfac Charity Association oo runtii ah niman muwaadiniin deegaanka Soomaalida u dhashay oo bulshadooda in muddo caawinayay tabarucaad badan fidinayay ayaa maanta waxay u talagaleen in 70 arday ay caawiyaan isla markaana ay siiyaan agabkii waxbarasho ay u baahnaayeen buugaagtii uniformkii qalimaantii oo dhammaystiran inay 70 arday oo laga soo kala xulay maamulka magaalada Jijiga xaafadaha iyo iskuulada qaybahooda kala duwan laga soo kala xulay asagoo markaa shuruudaha lagu xiray ay tahay ardayda maartay danyarta ah inay caawiyaan ayaan maanta halkan guddoonsiinayna ardayda waa kan aad arkaysaan runtii waxaan dhihi karaa waa tabarucaad hay'adda Anfac muddo badan sanadii hore ay waday sanadkan hadda ay iskuulka bilowga furitaankeeda ay kaga qayb qaadanayso waxaana ka qayb qaadatay bulshada deegaanka Soomaalida qaybaheeda kala duwan aqoon-yahaniinta ganacsatada iyo gaar ahaan qurbo joogta dalka Norway oo uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Rooble khayr Allah siiyo oo runtii si fiican tabarucaad badan in badan mobilization badan u sameeya marka si guud waxaan dhihi karaa isbeddelka kadib bulshadu qaybaheeda kala duwan ee tabarucaadka ay kaga qayb qaadato iyo isgarab istaaga sektorka waxbarashada waa mid aan boogaadinayno ka xafiis waxbarasho ahaan anagoo ku hadlay afka waxbarashada waxaan leenahay hay'adda Anfac aad bay u dadaashay annagana runtii ka xafiis ahaan wixii ayagu ay garab naga baahdaan waan garab taaganahay bulshada deegaanka Soomaalida iyo hay'adaha kala duwanba wixii kaga aadan inay la shaqeeyaan baan ayagana u soo jeedinaynaa maanta waxaa noo qarsoomay qaybtii hay'adda Anfac qaybtii waxbarashada qaybta waxbarashada 70 arday oo danyar ah oo maartay isugu jira maartay rag iyo dumar ah ayaan maanta waxaan siinay agabka waxbarasho dhameystiran sida buugaagtii dresskii dharkii iyo qalimaantii iyo qashiiradii ayaan u qaybinay waa 70 danyar oo ka soo kala xulnay maamulka magaalada Jijiga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qof kasta oo maartay asxaabta daliya dibadba ka qayb qaatay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen sida Sheekh Maxamed Rooble oo kamid ah xubnaha hay'adda Anfac guddiga boordiga oo jooga dalka Norway oo si fiican oo wadanimada uga qayb qaatay iyo asxaabta fara badan maartay aan u bandhignay ka qayb qaatay abaalkiina Allah gudo aad iyo aad baan u mahadsantihiin waana sii wadanaa haddii la yiraahdo mar walbana maartay aan joogteynaa dad carruurta danyarta kuwan oo kala maaha boqolaal danyara oo haysan agabka waxbarashada jira waa inaad ka qayb qaataan aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Barnaamijkan ardayda danyarta ah loogu deeqay agabka waxbarasho ayaa qayb ka noqonaya barnaamijyada ay hay'addu taageerada ugu geysato dhinaca waxbarashada.